waxaan halka ka akhriyayaa war-saxaafadeedkii shirkii socday oo ka soo baxay odayaasha dhaqanka beesha ciise ee magaalada Ayshaca 19 bishii 11aad 2025 odayaasha dhaqanka ee gandaha ee beesha ciise uu hogaaminayo ogaaska beesha ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim isla markaana ka kala yimiday dalalka Itoobiya Djibouti iyo Somaliland ayaa laba maalmood shir ballaaran ku yeeshay magaalada Ayshaca shirka waxaa diiradda lagu saaray masiirka beesha ciise midnimada bulshada iyo diyaargarowga munaasabadda xeerka ciisaha ee lagu qabanayo magaalada qadiimiga ah ee Zeyla 5 bisha 12aad 2025 odayaasha dhaqanku waxay shirka ku adkeeyeen qiimaha iyo sharafta xeerka ciisaha oo ah mid ka mid ah xeerarka ugu facweyn uguna qiimo badan dhaqanka Soomaaliyeed oo ah dhaqan boqolaal sano soo jiray oo beesha ku hagto arrimaha maamulkeeda bulshada iyo wada noolaashada kaas oo lagu xalliyo khilaafaadka lagu ilaaliyo nabadda laguna hubiyo cadaaladda iyo guud ahaan bulshada ahna tiir mideeya beesha ciise kana mid ah astaamaha ay dadka ciise ku faanaan isla markaana ay hay'adda UNESCO aqoonsatay taas oo muujinaysa qiimaha uu leeyahay bulshada iyo dhaxalka dhaqanka Soomaaliyeed aan la taaban karin intii shirku socday waxaa sidoo kale lagu gorfeeyay u diyaargarowga munaasabadda xeerka ciisaha ee sanadkan lagu qabanayo magaalada Zeyla iyada oo saddexda dal ay beeshu degto laba ka mid ah munaasabadaas hore loogu soo qabtay ay ka mid yihiin magaalada Diradhabe iyo Djibouti iyo goobo kale oo badan halka munaasabada ugu dambaysa lagu qaban doono magaalada Zeyla 5 bisha 12aad 2025 oo ah maalintii rasmiga ah ee lagu dhawaaqay xeerka munaasabada xeerka ciisaha ee lagu qabanayo Zeyla waxa leedahay muhiimiyad gaar ah sababtoo ah waxay dib u xasuusinaysaa bulshada meelihii uu dhaqanku ka unkamay isla markaana lagu soo caleema saaray 19 ogaas ee beesha ciise waxayna xoojinaysaa in Zeyla ay weli tahay ilayska dhaqanka ciisaha iyo hooyiga dhaxalka soo jireenka ee lagu faano Zeyla oo ka tirsan gobolka Sanaag waa magaalo taariikhi ah oo si gaar ah ugu xidhan dhaqanka iyo dhaxalka beesha ciise taariikh ahaan Zeyla waxay ahayd mid ka mid ah meelihii ugu horeeyay ee odayaasha beesha ciise u fariisteen xeerka halkaas oo ay ka dhiseen una asaaseen xeerka ciisaha ee maanta taagan nabadda cadaaladda iyo wada noolaashaha bulshada shirka oo maanta si nabadgelyo ah ku soo dhamaaday ayay odayaasha dhaqanka ka soo saareen qodobo muhiim ah waxaana ka mid ah kow in munaasabadda xeerka ciisaha lagu qaban doono maalinta rasmiga ah ee 5 bisha 12aad 2025 iyadoo wax isbedel ah lagu sameeyay ballantii odayaasha gandaha ee beesha iyo xukuumadda Soomaaliland ay ku heshiiyeen laba waxa la farayaa dhammaan gudiyada Soomaaliland ee u xilsaarnaa qabaqaabada xuska sanad guurada koowaad ay tagaan magaalada Zeyla isla markaana diyaariyaan goobaha ay munaasabadda lagu qaban lahaa saddex in munaasabadda si nabad ah ammaan iyo xasilooni leh u dhici doonto isla markaana bulshada looga baahan yahay ka qayb qaadashada iyo ilaalinta nabadda afar waxaan baaq u diraynaa dhammaan ogaasyada salaadiinta garaadada iyo madax dhaqameedyada kale ee Soomaaliyeed in ay ka soo qayb galaan munaasabadan si loo muujiyo midnimo iyo qadarin dhaxalka dhaqanka shan waxaan madaxweynaha
Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo maamulkiisa ugu baaqaynaa in ay nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Sanaag kala shaqeeyaan gudiyada dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolka isla markaana martida imanaysa munaasabadaasi siiyaan daryeel gaar ah shirku wuxuu digniin adag u diray cid kasta oo isku dayda inay caqabadayso ama khalkhal geliso amniga munaasabada iyada oo la cadeeyay in aan la aqbali doonin wax kasta oo fawda amba amni daro abuuri kara الإحراق الوين ينقل ورصافته وبالله التوفيق اللهم هذا